waxaa maanta magaalada Kampala si rasmi ah uga furmay shirkii wadamada barwaaqa sooranka Afrika waxaana shirkaasi si weyn uga dhex muuqday observers-ka Somaliland uga qayb galayay shirkaasi oo hormuud ka yahay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Somaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle iyo xubnaha kale ee ay kamid yihiin xildhibaan Axmed Cabdi Waabeeye Axmed Cabdi Kijande Cabdicasiis Ismaaciil Xamse Xaaji Dool iyo sidoo kale xogayaha guud ee golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle waxaana shirkan maanta iba furay madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni iyadoo Somaliland ay si rasmi ah uga mid noqotay wadamada ku jira liiska xubnaha ka ah ururka barwaaqa sooranka Afrika geesta kale maalinnimadii shalay wafdiga Somaliland ka socda waxa gurigiisa kulan ballaaran kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Mr. Honzam Kutesa waxayna ka wada hadleen xiriirka qotada dheer isla markaasina soo jireenka ahaa ee labada dal ka dhaxeeya waxayna wasiirka uga warameen xaqiiqada waqtigan Somaliland taala waxaana 27 bishan oo ku beegan maalinta Jimcaha ah wafdigan Somaliland ka socda casuumad rasmi ah ku maamusay madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni Cabdiraxmaan Ismaaciil Siciid TV-ga qaranka Hargeysa